waxay tiri aniga muslim miyi balse waan dukadaa. Qisadani waxaa ka sheekeeya haweeneyda ee ku dhacday wiilkeeda, wuxuuna ku bilaabay sida tan: aniga waxaan u dhashay dalka Mareykanka, hooyaday iyo aabahayna isla dalkan ayay u dhasheen. Hooyadeyda waxay qaadatay diinta Islaamka, salaadahana waxay ku dukataa masjidka. Balse maalin ayay waxay la kulantay haweeney kula dukanaysa masjidka, isla markaana aysan ka muuqan wax diin ah, yacni maysan asturnayn, waxayna masjidka timaadaa isbuucii hal mar. Hooyadeyda arrintaa marar badan ayay ku soo laalaabatay. Ugu dambeysa waxay go'aansatay inay weydiiso xaalkeeda siduu yahay. Hooyaday ayaana haweeneydii waxay ku tiri, adiga muslim miyaa tahay? Haweeneydii ayaana ku jawaabtay, maya, aniga ma ahi muslim. Hooyadeyda aad bay ula yaabtay, waxayna ku tiri, oo haddaadan muslim ahayn maxaad masjidka u timid? Diinta ayaad baranaysaa oo waxaad rabtaa inaad islaam. Haweeneydii ayaa tiri, maya, sidaa maaha. Hooyaday ayaana ku tiri, haddaba ii sheeg waxa ku keenay masjidka. Haweeneydii ayaana ku jawaabtay, aniga waxaan dareemaa xanuun iyo culeys xagga qalbiga ah, waxaana la xiriiray dhakhaatiir aad u fara badan. Dar welibana wuxuu ii soo qori jiray daawo, balse daawadooda waxba imaysan qaban. Kadibna saaxiibadeyda ayaan u sheegay dhibka ay haysta, balse saaxiibada ayaa ugu dhahday, bal tijaabi diimaha, waa intoosoo aad ku caafimaadaaye. Waxaana bilaabay inaan tago kiniisadaha si aan nafis ugu dareemo, balse waan ku dareemi waayay wax nafisa. Waxaan soo tijaabiyey diimo badan, balse kumaanan dareemin wax nafisa. Kadibna waxaan go'aansaday inaan soo eego dhanka diinta Islaamka. Waan soo baxay, kadibna waxaan imaaday masjidka, waxaana bilaabay in aan idinla istaago. Waxaan dareemay nafis, waxaana si aad ah ii cajab geliyey dhawaaqa imaamka iyo wuxuu akhrinayo. Hooyaday ayaana waxay ku tiri, wuxuu akhrinaya ma ahan hees ama wuxuu asiga iska aliftay, ee waa hadalkii Ilaahay. Haddii aad adiga doonaysidna waan ku bari karaa. Ii sheeg waxa aad dareentay kolka aad maqasho wuxuu akhrinayo imaamka. Haweeneydii ayaana tiri, markii aan idinla istaago oo aan sameeyo waxa aad sameynaysaan, waxaan dareemaa nafis, waxaana iga dega culeyskii, waxaana masjidka ka baxaa anigoo faraxsan. Kadibna waxaan maqnaadaa ku dhawaad isbuuc, waxaan dareemaa culeyskii oo kale, kadibna waan idiin imaadaa, sidii uun baan sameeyaa, kadibna waan caafimaadaa oo culeyskii baa iga dega. Sababta ayaan u imaadaa masjidka. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.